السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال كلنتي وعن أو ناكسن ملكستو عاد دنيا عاد كجوكتانا كسر دوادا وربحنا ذي وركي قدام عيارها صاحب يال وحن إيجو دونا مانتا تغير يال بدن أو كترسن كوحدة أرسنال أي وصل بحي حالي وقوي لندن أيوة سنة كان كوهيا كوحدة حال صارلسو كوحدة أنا حال هذيو كوحدة هو حلقة بدلو كوحدة يا وين oo quality hal keeno ay ku haya aan igu doonaa waxaan kaloo igu doonaa kooxda Arsenal oo macalinkeedii ay sanadii dhootay ay jafjafteen oo boorka ka qaateen ay Arteta hadeer leeyahay Paris Saint-Germain ayaa lacag ku soo xirgelinaysa leeyahay ayaan wax ka igu doonaa waxaan kaloo igu doonaa saaxiibayaal kooxda kubadda cagta Arsenal oo dadaysa ciyaaryahanna waaweyn oo ka tirsan qaaradda Yurub sida Valverde sida Kev Havertz وإيقدونا هدي أتاي صاحبك عصبرتينان فضل سكريب نوصار لك شرطنا ونومهين ونقوم أحسن تاي صاحب لجاقات كاغا ويا هاي صاحب بيال وحنا كوب بلاو دونا صاحب بيال ورركينا كوحدة أرسنال تاغير بدن أو سنديه دويتو بور كسو جفانيا كوحدة أرسنال oo niyada sanad ilaahay keeno ku dhista inay qaado doona horyaalka Premier League ayaa wax isku soo xoomeen garoonka Emirates Stadium ee waqooyiga magaalada London Arsenal sanad ka dhawaato waxay ku sigatay inay ku guuleysto horyaalka Premier League taas oo dad badan u badanayeen inay sanadkan ku guuleysan doonto horyaalka Premier League laakiin taas ma sadicin oo waxa ka qaaday kooxda Manchester City oo markeedii saddexaad oo xiriir ku guuleysatay horyaalka Premier League Arsenal sanad ka dhawaato waxa ay soo sameysay wax ay dhif iyo nadiir tahay inay sameyso kooxda Arsenal sanadihii la soo dhaafay tan iyo 2004 ilaa 2021 Arsenal waxa soo sameysay sanadkii dhawaato waxay sanadkii u fiicneed tan iyo 20 sano ee la soo dhaafay kooxda kubadda cagta Arsenal waxay 7 sano ka bacd ay ku soo laabatay afarta ugu sareysa horyaalka Premier League ayadoo sanadkan dheelisa Champions League oo 7 sano ka hor ay ugu dambeysay inay dhasho kooxda lagu magacaabo Gunners sanadkan waxa ahay sanad ay aad u fiicneed taxadarkeeda boonigeeda kulinteeda weerarkeeda maskaxdeeda himaladeeda meel walba ka dhisneed laakiin nasiib ayaa diiday oo kulmadii lagu dambeeyay ee horyaalka Premier League bishii Abriil iyo Maarso waxay khasaareen dhibco badan kuwaas oo diiday inay ku guuleysato horyaalka Premier League marka waxa leeyahay taageerayaasha Arsenal oo sanadkii dhawaato la kulmay qalbi jabka weyn hadda xil ciyaareedkii dhamaaday baa sheegaya xil ciyaareedkii soo dhaafay Arsenal taageero badan ma iska baxay because waxay sanadkan filayeen inay ku guuleysan doonaan horyaalka Premier League laakiin maysan dhicin oo dib weyn ayaa soo gaaray kooxda kubadda cagta Arsenal marka waxa leeyahay taageero badan oo ka tirsan kooxda Arsenal oo gaaray ilaa kumnaan taageerayaal ayaa waxay hadeertan ku xunsan yihiin garoonka Emirates hortiisa waxay ku hayaan kooxda sida loo dhaam kooxda sanadkan ciyaaryahanna waaweyn lagu soo diro markii ciyaaryahan weyn uu dhaawacmo sidii bedelkiisa loo helo sida kooxda Manchester City oo kale ay u qalabeysan tahay naadiga Arsenal la soo qalabeeyo Arsenal la soo qalabeeyo ku haya Arsenal kuma daawan karno kuma taageeri karno hadii kale Arsenal waa isaga tagaynaa oo Manchester City ayaa ku biirna anagoo dhan ay Chelsea bay ku hayaan maadaama Arsenal ay sanadkii dhawaato si bahdilaad ah looga qaaday koobka horyaalka Premier League ayadoo mar ku soo qabatay koob iyo 10 dhibcood laakiin laga dayimid Arsenal koob iyo 10 dhibcood bay ku haysay bishii 10aad iyo 11aad iyo laakiin waxba taas uma rumeyn oo waxba uma suurtagelin oo koobka laga qaado waxay hadeertaan aan ku xijin doonaa saaxiibaya warkeena in kooxda Arsenal ay doonayso ciyaaryahanna waaweyn bay doonayso Arsenal كافاس باكمدا فلفردي باكمدا دافع iyo waxa la sheegaya Bortieri waa la sheegaya nin weerara oo Gabriel Jesus markuu dhaawacmo booskiisa buuxin kara waa la sheegaya marka Arsenal araagooda ma xuma macalinka Arteta wallahi macallin waxa weeye Arsenal wuxuu ku leeyahay abaal weyn Arsenal shilay yaqaan u soo ceshan ka dhawaato Arsenal wax weeraraysa Arsenal bumoonigeedu quality leeyahay بونونيو نتيجة ليه بوصل كده وتنتصي معلنك لو مقعبه ميلكال أرتيتا
marka waxaa leeyahay asagana hadda horta farba ku gudan oo macallimiintii taageerayaasha Arsenal iyo maamulkoodu khalkhal baa galay maadaama Paris Saint-Germain ay macalinkan Arteta ay focus ka saarayso diiradda saarayso inay ku soo qaadato macalinkan maadaama uu yahay macalin khabiir ah oo koox dhisa kara daliil lacag haysta oo ninkan lacag kusoo xirin kara oo kooxdiisii hore Arsenal oo hadda uu boor ka qaatay oo jaftaftay macnaha kasoo kaxayn kadha bay u sheegi karaan maadaama koox lacag haysta lacag quuraysa lacagtu aysan xoolo ahayn ay tahay Paris Saint-Germain oo carab ay leedahay oo yaa lihi karo waa lagu kala kicinayaa meeshaano nin waxa laga dhigayaa wax haysta yaa kooxda waa lagu dhisayaa inkastoo Messi iska baxayo Mbappe fargudan tahayo Neymarna uu sahayn lagu tashan karo oo yaa quality uusan hayn marka waxay rabaan maadaama Manchester City ay ku guuleysay horyaalka ku guuleysay Champions League horyaalka Premier League-na Paris waxay leedahay anagana macquul ma aha inaan ku guuleysan weyno anagoo intaas oo milyan galnay ma aha macquul inaan ku guuleysan weyno Champions League marka Arteta Arsenal waa loo yaabaa war Arsenal waa loo yaabaa Arsenal macallin Arteta ma si haysan kadho ya sabay ku sii haysan kar ma ku sheegayaa Arteta horta wuxuu rabaa koox la dhisayo oo ciyaaryahanno waaweyn la keenayo maadaama mustaqbalkiisa uu rabo inuu noqdo tababaro weyn oo koob weyn kusoo guuleystay sida Pep Guardiola oo la soo shaqeeyay Mourinho oo kale macalinkan hadda jooga Real Madrid kulli waxay u xorayeen inuu noqdo macallin weyn oo adduunkan sumcad ku leh inuu noqdo rabaa oo laga dambeeyo oo koob weyn kusoo guuleysto oo sawax kale uu rabaa marka hadii Arsenal loo dhisi waayo oo Arsenal wuxuu korabo loo habeen waayo wuu iska tagayaa mid labaad waa lacagta ninkan lacag lagu farqinayaa ya lacag ayaa la siinayaa lacagtii ahayd xaqaas loo dhigayaa ya waxa la shaqeyso koox loo dhisayo lacag la siinayo oo koox ku dhisto oo ciyaaryahanada weyn kusoo iibsado waa la siinayaa asagana mushaar ahaan salariga oo loo siidinayaa oo lacag badan oo tuu hadda ka qaato Arsenal 5 jibaarkeed 10 jibaarkeed waa la siinayaa ya ta saddexaad ku sheegayaa wuxuu haystaa oo soo shidan kara in horyaalka Ligue 1 sanad ilaahay keeno ku guuleysato Paris Saint-Germain ya Paris Saint-Germain ku guuleysatay tasna wuxuu ku darbidayaa inuu koobkaas macnaha horyaalkaas u 3 jeer iyo 2 jeer iyo boor ka soo qaato ya meesh aqla ku jira boor ka soo qaato oo asagoo buran oo xogaa koobkii Ligue 1 iyo wax isku soo aadisay inuu ku salato horyaalada kale macnaha ligaha iyo Premier League iyo Bundesliga iyo Serie A iyo horyaalada weyn oo ku salato rajeenaya marka Arsenal hadii sanadkan ay dhisin waxa ma qaaday karo hatta afartii waawanaysa maadaama kooxda Premier League Manchester iyo ay soo dhisayaan ma santiin saaxiibaya